بيئة waxaa imaan doonto runtii dhibka ay leedahay ayaan rabaa inaan kala hadle بيئة تأثيرka ay leedahay rabaa inaan idin sheego misaal baan idin tusinaya Soomaaliya ka dhacay wiil yar oo Talyaaniga wiilka Talyaaniga aabayo hooyo kaliya ilma ka qaba diblomaasina weey aabihi waa Muqdisho weey وحافظ بونديروي ما شيك بوجا أنا ويلكي يعني هرتي إذا وش شيك يا رنتي ويلكي واحد عادي مركي هذا وشقده كسر روحه هو يدنا أي كسر روحه والله وقفوا دي فاميلي ويل كان بنانك وبحيان عندنا أي ويل كابو جوجا بس ويلكي حقوا هذا يا مركي المسوا مالي وقرنقركوا عياري يمشي شتكا أيوة لا عيارة مالي والله إلا المكرة ما يسته المو قرنقرت لا عيارة قرنقرت اللي إريا يو كليت المكو داواي حوغا كوكلت ووين أكو صبيري وإلا عيارين عنوغي انت أبي وهو يدي أي هردايين عنوغي واحد جايين دكسو قراني جايين ilmahan raacaya dugsiga quraani la soo dhiganaya la soo dhiganaya ambuulada la cunayo wax ka soo cunaya markii ilma laga ducaynayo wax oo dhan markaas ay dhan kitaabka ha taabanin kala gaalata kitaabka taabanin gaalata quraanka ha taabanaya cunug yarka iswa iska yar oo iska aamusay uma sheegay waxaas ay ku dhigayaan hada ilmuhu ku dhigayaan uma sheegay abiyo hooyadii ogow adigana saas oo kale tan loo dhaqmaya ogaada maalinka dambe iyagoo ciyaaraya يدهن هنا تابنن هنا تابن هرناتي هنا تابنن هرن متقانين ما يقانين فيري هرن waxa Soomaaligu yiraahdaan eyga nijaasa weey haduu ku taabto marka haranku waa eyga wixii la iska eriyo laga fogeeyo haran la yiraahdaa si ay u fahmaan madoona ciyalkee waxay ku yiraahdeen haran baati hana taabanin soo wadta haran maxuu Talyaaniga ku yiri doob haran markaas la yiri haran waxa weey eyga aad la ciyaartaa marka najaasa kugu taala najaasadana ha nagu taaban najaasada adiguna anugi ilmahan raba inuu la ciyaaro dhagaxday dhigayna loo dhigdhigo raba waxaan hana taabanin haranaatee harankiina waa loo sheego waa eygan taabashadiisa la ciyaarayso guriga inta ku soo noolaalka wuxuu yiri eyga ku bilaabo ul waa yaabeen odayga aabay waxa la eyga maxaa u dilaysa waa fiican yahay waa faratelaaga waaye faratela way brotherka yirasoma waa faratelaaga maxaa u dilaysa waa haran weeyo faratela ma noonay faratelo yiri waa way tarabba haran waayo waa wadiga eyga tarabba haran waayo deen tarabba waayo aad buu haran u yahay wasaq u yahay waa yaabeen eygi ama guriga ha laga saaro iyo amaanaga ha laga saaro nag waxay ku qasabtay ninkii inuu eygi markii dambe cid kale oo Talyaani iska siiyo hay wiilkii yarka ilma ka qabay wiilkii wuxuu yiri eyga ama aniga ama eyga ayagoo yaaban meesha looga yimid ma oga barka waa seexdaan maalin kasta ayagu inay banaanka niman u joogaan yaryada ku deeyay ma oga maalinkii dambe yiraahdeen radiga buriiqa baa taayeen uf buriiqa maxaa la yiraahdaa yiri waxay dhaheen buriiqa waxa la yiraahdaa ilmaha la gudin baa la yiraahdaa adiga waa naga duwanta wasaqata adiga ilmihiya waa ilma yaryare sarwaalka yar inta iska wada fureen tusiyeen in la gudan yihiin asagana aan gudnayn waa kaas alimarta ina qashin tahay waa arinta hadda aan sheegayo kala gabdhaha la leeyahay waxay qarinaysaa oo kala soo markaysaa hadaba waxay qarinaysaa saan ogaw arinta hadaba waa the same yani procedure weeyaan oo lagu dhaqmayo waxa uu yiri waa inaan ka takhaluso arinta sayada waxa uu tagay canugii ilmihi waxay u geeyeen istaalkii Martiini la dhijiray geeyeen ilmihi say canugii u wadeen waa in la soo gudaa anigan waa yaabeen abiyo hooyadii kaxbay ku noqdeen canugu waa kaxayeen waa la soo guday halka canugu qaban Talyaanigu maxay sameeyeen waa imtixaanan yihiin waxa la yiri baqtiga cunta maalinkii dambe doofaarka cuntaha la yiri doofaarka cuntaha oo doofaarku maxaa dhibay doofaarka sida eygo kale too yahay turabbo najis yahay asagana gurigii ku noqday
wax alla wixii gasac u yaalay iyo wax alla wixii la doofar Soomaali lagu maqalay gasac lagu leeyahay meeshii asaga ay sheekeynay gasacyadii oo dhan oo Talyaaniga ahaa oo doofarka ay boorka kula yimaadeen oo dhan kulli intuu arushu qubay wiilkiirka khamrigiina intuu qaatay oo dhaladii dhulka la dhacay markaasuu labadaba najis waay waxay dheen ilmahan waxa wax bar marka waynan ogaanaa si kasta inta yeelan u sheegi diiday saasoo kale taa marka doofarka looga tufay anugaas gaalka ah ilmaha naga doofarka leeyahay maxaa dhacay waa cunta cun xaka cun is good maniela maniela Talyaani Soomaa maniela waa cuntada ugu fiican weeye cun sandwichkan manielada banini biye banini banini maniela marka cuna la leeyahay ilmaha anaga saasa loogu daldala anagana sandwichka iyo maanta waxay ku jiraan oo kale kulligood loogu daldala because hadoo yira mar rabo maanta dawdiido boqolaa ku kacaydo waxa lagu leeyahay hel naga tagna lama ciyaari kartidi ilaa iyaga superiority kale yihiin ilmihii yarka ahaa waa fahamta Soomaa hooyadu ma oga aabuhuna ma oga marka sida canugaas yarka Talyaaniga aanay aabihi hooyadii u ogeyn aanan ilmaha naga u ogeyn waxa la cunsiinay sida loola hadlay sida loola dhaqmay aanan ogeyn okay anugii waa la soo guday doofarkii waa diiday khamrigii waa jajabiyay maalinka dambeeto ilmihii markay dugsigii tagaan waxa la quraanka taabanin maxaa dhacay gaalata halayri maxaa noqonaya muslim noqolayno muslim soo noqda waay la ilaha illa allah muhammadur rasulullah de anugu la ilaha illa muhammadur rasulullah yani ilmihii macallin ay u noqdeen anugii sheekh bay u noqdeen dugsigan uu tagayo quraanka waqrin wuxuu yiri ayadana aabbayoyada ogay ma quraanka waxaan soo dhigtay ilaa juz amman soo bartay yiri soo xafiday yiri aabbayoyadana xabad kama ogeyn buu yiri maalinkii dambe waxay uu yiri hey maqla maraba waxaan aad karsanaysan adinka cuntadayda waa ii gaar way aniga muslimaan aanu yarka ah adoogi hooyadii waa qaraami gaareen waa soo guureen magaalada waxay soo degeen France ayay soo degeen aniga baash ugu sheekeynay wiilku waa France way markay soo degeen wiilkii waxay islaayeen waa idin soo noqon doona ma soo noqon masaajidkiisu ku xirmay dharkiisii uu qaatay ilmihii Soomaalida cid aan raaci maayo gabdhii meesha ka shaqeynayay gabar kamid ah Soomaaliya af Soomaaliga wuxuu yaqaan sida anagu uga hadlayno kale habartii aabuuna Talyaaniga Soomaaliga ma yaqaaniin markay iskala weynaan markii hore orgolyo waxa weeye asaga af Soomaaliga wuxuu bartay sidii ilmihii u baahlayeen ugu hadlay wuxuu yiri gabadhan Soomaalidan guursanaa gabadhu waa isku soo dhaceen bas waa guursan habartii adoogu sheego wuxuu yiri ogaada aniga waxaan guursaday gabar muslima oo Soomaali aan guursaday waxa la daayirad naga tahay okay buu yiri bane adinka idinta Allah buu yiri waxa dartan ugu xukuma laakiin aniga gabadhan guursanay iyada muslima mar rabo ilmahayga inay meel muslimin salka dhigaan ma doonayo meel muslimin ilmahayga salka dhigaan ma doonayo ogaada taas wiilkii saasuu gabadhii ku guursaday aabii hooyada waxaan gabadhan Soomaalida ma arki karno markay muddo joogeen oo ilmo u dhasheen ay waxay ilmaha aan aragno no buu yiri naagteena la hadashaan oo raali ka dhigtaan moogi ilmaha arki maydaan marka gaalad ilmaha way gaalaysiinaysa aniga arkay indhaygan ku arkay waxaad ogaataan marka canuga procedure la soo marsiiyay meesha uu ku dambeeyay in la ku dambaysiinay gabar iyo wiilba in sidaas oo kale la ku dambaysiinay